qodobada warkeenu waxaana qoray Cumar Maxamed Faaraxa. muddooyinka dambe waxaa soo badanaya dad badan oo dhalinyaro ah oo aan aqoon ku filan ka haysan magaca dastuurka ugu qoran dalkooda Jamhuuriyadda Somaliland, kuwaasi oo marka ay qoraalada sameynayaan ama fagaarayaasha iyo warbaahinta ay ka hadlayaan adeegsadaan kelmadda Somaliland oo kaliya halkii ay ku dhaadan lahaayeen Jamhuuriyadda Somaliland. dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland qodobkiisa koowaad waxa uu si cad u bayaaminayaa magaca iyo dalka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaana uu qoran yahay qodobkaasi dalkii maxmiyadda ahaa ee 26 Juun 1960 gobonimadiisa ka qaatay boqortooyadii midowday ee Ingiriiska iyo waqooyiga Ireland, lana oran jiray maxmiyadda Somaliland, kuna biiray Soomaaliya 1 bishii Julaay 1960 si ay u wada curiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliya Somali Republic ee kula soo noqday gooniisutaagiisa. go'aankii shirkii beelaha Somaliland ee Burco 27 Abriil ilaa 15 bishii May ee 1991 waxa uu halkan ku noqonayaa sida waafaqsan dastuurka dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada qaranimadiisa, kuna magacaaban Jamhuuriyadda Somaliland. hay-adaha warbaahinta noocyadooda kala duwan waxaa la gudboona in ay wararka iyo dhacdooyinka ay gudbinayaan ee dalkooda in ay ku baahiyaan magaca Jamhuuriyadda Somaliland. sidoo kalena siyaasiyiinta iyo waxgaradka kale ayaa waajib saaran ay tahay inay adeegsadaan Jamhuuriyadda Somaliland si aynu uga duwanaano magacyada dowlad goboleedyada ku hoos dilaacay dowladda maqaarsaarka ah ee Soomaaliya. waxaa ammaan mudan dhalinyarada iyo qurbajooga dalka qaarkood oo adeegsanaya magaca saxda ah ee Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana ay saxaafadda bulshada ay ka difaacayaan dalkooda, kuna adag yihiin iibgeynta qadiyadda qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland. sidaa daraaddeed muwaadin, adiga oo aan dhaadanayn wax ha u dhimin dalkaaga oo ha kala jarin magacii dastuuriga ahaa ee lagu dhisay Jamhuuriyadda Somaliland. ugu dambeynna shacab iyo xukuumadba waa in aynu dhalinyarada jiilka soo koraya lagu ababiyaa in magaca saxda ah ee dalkeenu uu yahay Jamhuuriyadda Somaliland, oo haddii laga tago kelmadda jamhuuriyadda ay noqonayso mid kef ah oo deelqaafo ku ah qarannimadeena, isla markaana waxa keliya ee aynu kaga duwannahay ay tahay sharci ahaan Soomaaliya oo aynu xornimadeennii kala soo noqonnay 30 sano ka hor.